وهجاك ciyaaraha Soomaalida intayna ka bixin magaalada Hargeysana waxa sidaas si lamid ah si xiiso leh uga socda horyaalka Somaliland wariye Cabdirasaaq Biinde oo ah wariye ciyaaraha ka faaloodo ayaa iiga waramay natiijooyinkii ugu dambeeyay iyo halka la isla marayo الحاج عبد الريال سومالان waxuu bilaabmay 22 bishii Febraayo 2021 Wariyal ka kooban 3 heer oo kala duwan heerka koobaad heerka labaad heerka saddexaad guud ahaan kooxuhu waa 30 kooxood Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee laga hirgeliyo Wariyal 3 heer ah iyadoo ay fulintu leeyihiin xeerka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland kooxaha heerka koobaad waa 10 heerka labaad waa 10 heerka saddexaadna waa 10 haddaan dul istaago heerka xiisaha badan ee daawadayaashu inta badan galabkii ay yimaadaan garoonka weyn ee Hargeysa Stadium waa kooxaha heerka koobaad waxay ka kooban yihiin waa 10 waa kooxda dawladda hoose kooxda ciidanka asluubta kooxda goodir kooxda ganacsiga kooxda maaliyadda kooxda gaashaan caafimaadka duulista waa xool iyo biyaha kooxda imika toddobaadka labaad ugu dhibcaha sareysa waa kooxda dawladda hoose oo 6 dhibcood leh iyo 4 gool oo saafi ah kooxda ciidanka asluubta ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 4 dhibcood iyo 2 gool oo nadiif ku haya kooxaha heerka hoose ku jira kaalinta 9 iyo kaalinta 10aad waa kooxda waa xool iyo kooxda wasaaradda horumarinta biyaha oo 1 dhibic leh kooxda waa xool halka kooxda biyuuna aanay wax dhibic lahayn guud ahaan goolasha la iska dhaliyay waa 38 gool toddobaadkan labaad toddobaadka hore wax la iska dhaliyay 20 gool toddobaadkii dambana wax la iska dhaliyay 18 gool tartanku waa mid aad u xiiso badan daawadayaal fara badan bay imaada waxaana tartankan xiise gooni u leh labada kooxood ee kaalimaha ugu sareeya leh waxay u gudbi doonaan tartan la magac baxay championka kooxaha heerka hoose gala ama heerka 9 iyo heerka 10aad oo khadka casmarana waxay u soo gudbin doonaan kooxaha heerka labaad marka tartankan waa mid lagu kala baxayo kooxaha iyo macallimiintu si wanaagsan bay ugu diyaar garoobeen horyaalka waxayna la jaan qaadi doonaan sida horyaalada caalamka ay u ciyaaraan kooxaha iyo macallimiintu isku dhisayaan waxa xiise gaar oo kale leh in suuqa kala iibsigu furmay malaayiin lacag ah la galiyay suuqa kooxaha lagu kala iibsaday lacagta lagu qiyaasay suuqa gashay dhanka ciyaartooyda waa 8 milyan oo shilinka Soomaaliland runtii xiise gooni ah ayuu leeyahay horyaalkani humuum bay u qabaan kooxuhu inay ku guuleystaan ama kaalimaha ugu sareeya ay ka soo qayb galaan iyagoo ka cararaya kaalimaha ugu hooseeya oo inay u gudbin heerarka labaad عادي عاد بدو ما حصلتها كاسر وحوها وريه عبد الرزاق بينده خدك تلفك مقالة هرقيسة إيقو ورمعي